walaalahayga qaaliga ahow, waxaan dhalnay wiilal ama gabdho kuwaasoo aan ka leenahay rajo fiican. Nahay in ay u dhaqmaan ilmaheena qaabka aniga aan doonayno. Laga yaabaa in aan doonayno in mustaqbalka ay guursadaan wax anaga aan rabno. Waxaana ka rajaynaa wax badan. Waxaana rabaa inaan kuu sheego, waxaa lagaaga baahan yahay inaad isbedesho inta uu waqtiga socdo. Haa, waa sax. Waxaa jirta rajo aan ka leenahay ilmaheena, balse Allah ayaa wuxuu siiyey maskax ku filan. Laga yaabaa weligood inaysan sameynin waxa adiga aad doonayso. Laga yaabaa inay dhacdo, balse ha ku cadaadinin si ay u dhacdo taas ayada ah. Waxaan rabnaa inay ilmaheena ugu horeeyaan daa oo waqti sii ha raaxaystaan noloshooda. Waxaa laga yaabaa mararka qaarkooda in ay natiijo wanaagsaneen ay keenaan. Ha dhihin maxaa, waayo weli waa ilmahaadii. Insha Allah mar un ay guuleysan doonaan. Ha ka dhigin in ay burburiyaan noloshaada iyo toodaba, adiga oo ku adkeynayo nolosha. Waan ogahay in aan rajo ka leenahay, balse laga yaabaa in uu Ilaahay xag kale u wado oo ugu talagelin xagga adiga aad la damacsan tahay. Sidii si la mid ah, marka ay imaato xagga guurka, waxaan doonaynaa ilmaheena in ay guursadaan qofka anaga aan rabno. Taasi macquul ma ahan. Hana ku qasbin qofka aysan rabin. Rajada iyo riyada ilmaha aad ka leedahay ha koobnaato. Midda xaqiiqada ku saleysan ayaa ah in aadan ilmaha cadaadinin si ay wax aad doonayso u sameeyaan. Laga yaabaa cadaadinta faraha badan in ay u sababto in ay wax ceeb ah ku soo jiidaan. Caawi, haddii ay wax qalad sameeyaan hataa bar oo ugu celceli oo wadada saxsan tusi oo kaliya. Xasuusnow, weligaa ha u dhaaranin ama ha ku qaylinin ilmahaaga. Taasina waa la xarimay Islaamka dhexdiisa. Ha ahaada ilmahaaga ama qof kaleeto, weligaa ha u dhaaranin. Nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam weligiisa muusan ku qaylinin ilmihiisa xitaa hal mar. Weligiisna muusan garaacin ilmihiisa xitaa hal mar. Aaway kuwa ku qayliyay in ay nabiga jecel yihiin. Aaway, subxaanallah. Waan ogahay, waan jeclahay nabiga, adigana waad jeceshahay. Aan raacno tusaalayaashiisa sallallahu alayhi wasallam. Ha garaacin, ha ku qaylinin, tus naxariis oo bar. Xilliyada qaar mar allaaliya marka aad naxariis iyo raxmad aad tusto ilmahaaga, waxaa laga yaabaa in ay kuu soo damqadaan oo waxa aad doonayso ay ku fahmaan. Waxaa macquul ah in ay sii didaan oo ay sii fiigaan ilmaha. Inta aad ilmahaada jaanis u siinayso oo fursad u siinayso in ay khiyaarkooda ku socdaan, waxaa macquul ah in ay nolosha meel fiican ka gaaraan. Marka ay imaato xilliga guurka, sii waqti ku filan oo u ogolow qofka asaga uu doonayo, ha ahaado gabar ama wiil. Marka ay imaato xilliga guurka, ha ku qasbin ilmahaada qof aysan doonaynin. Laga yaabaa inaad aaminsan tahay in aad siiso qof nasab fiican ka soo jeedo ama qabiil sare ka soo jeedo, taasi oo ah mid aan fiicnayn. Si ilmahaada qofka ay jeclaadaan ama ay doonayaan ayaga in ay nolosha la wadaagaan. Taasi oo ah in ilmahaada ay khiyaar geliso, ayagana farxad u ah, noloshoodana ku dhisan tahay. In aad u fiiriso ilmahaada qabiil, aadna u fiirin kee ku wanaagsan, taasi ma ku wanaagsan Islaamka dhexdiisa. Taasi ma aha wax diinteena ku wanaagsan. Subxaanallah. Waxaa wanaagsan in aad u fiiriso ilmahaada waxa ay sheegayaan. Adduunyada way isbedeshay, horay ayayna u dhaqaaqday. Ma ku qasbi karno ilmaheena in ay sameeyaan waxa aysan doonaynin. Maya, ma ku qasbi karno. Walaalahayga qaaliga ahow, rajada ilmaheena aan ka leenahay aad ayay u dheer tahay. Haa, ilmaheena waxaan rabnaa in ay meel sare gaaraan, balse ma lahan kartidaas oo idil. Baro oo ogow ilmahaada sida ay jecel yihiin. Baro oo ogow sida ilmahaada ay rabaan. Dhiirigeli ilmaha oo mar walba u sheeg wax wanaagsan. Xikmadda ilmaha lagugu dhiibo waa in lagugu imtixaamaa oo la fiiriyaa sida aad ula dhaqantay iyo sida aad u wanaajisay. Ilaahay waxaan ka baryayaa in uu dhammaanteenba inagu wada sugo tubta toosan. أقول قولي هذا وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم.